gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceerigaabo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Sanaag iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Sanaag ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xafiiska xeer ilaalinta gobolka Sanaag ay ku yeelan doonto magaalada Ceerigaabo waxaana ugu horeyn goobta dhagax dhiga ka hadlay xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee gobolka Sanaag Yaasiin Maxamuud Aadan isuduwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyo injineer Axmed Aadan Guray oo ku hadlayay afka shirkadda dhismaha Dhahar Construction Company goobtan aan hadeer taaganahay waxa hore loogu asteeyay inay noqoto meeshii laga dhisi lahaa xafiiska xeer ilaalinta gobolka Sanaag arintaas aan ugu mahad celinayno maamulka gobolka Sanaag maamulka degmada wasaaradda hawlaha guud aan ugu mahad celinayno inay dhulkaas ma garanaysaa nasiiyaan oo noogu asteeyeen inuu noqdo xaruntii xafiiska xeer ilaalinta guud maantana waxay noqonaysaa waa bilowgii xafiiska ayaan maantana u taaganahay in la shaaciyo oo ay diyaar tahay oo joogto shirkaddii dhisi lahayd insha Allah taala waxaan uga mahad celinaynaa cid kastoo ka shaqaysay in hawshan qabsoonto oo haday tahay ragga aan soo tilmaamay madaxda mas'uuliyiinta aan soo tilmaamay maamulka gobolka iyo maayarka iyo cid kastoo ka shaqaysay wasaaradda hawlaha guud waxaan kaloo mahad celinaynaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo isaguna qorsheeyay in xafiiskani ma garanaysaa dhismo oo miisaaniyadii iyo imkaaniyaadkii wixii loogu talagalay diyaariyo tan waa ugu mahad celinaya insha Allah taala aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta yeelano meel xarun xafiis xeer ilaalinta guud ee gobolka Sanaag madaxda gobolku dhamaantood waxay soo wada jeediyeen heer gobol iyo heer degmaba inaanu dhisno xafiisyo tayo leh waxaan ballan qaadaynaa horena u soo qabanay shaqooyin fara badan haddana waxaan ballan qaadaynaa idinkuna aad goobjoog noogu ahaan doontaan oo nin waliba xil ka saaran yahay subaxdii waageedu bariyaba inaad koontarooshaan oo tiraahdaan halkaas ay ka xuntaay halkaas ay ka mid tahay dhammaantiin xil baa idinka wada saaran inaad wada jeegaraysataan oo la wada jeegareeyo inaga oo ku dareyna yani activity dheeraada insha Allah taala dadaal dheeraada idinkuna dadaal dheeraada halka aan rajaynayna inaad nagala gali doontaan sida u jeceshiin xafiisyo wanaagsan inay noo soo baxaan oo milgale wanaagsan idinkana waxaan rajaynaynaa inaad nala jeegaraysaan oo nala ogaataan ugu dambeyntiina waxa hadalka isaga kala dambeeyay kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Sanaag Sheekh Maxamed Axmed Cabdalle iyo waliba maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur xaruntii xeer ilaalinta gobolka Sanaag in halkan laga bilaabo dhismaheeda aad iyo aad baan loogu baahnaa waayo muddo dheer bay dulsaar ku ahaayeen wasaaradda cadaaladda xaruntooda oo ay xafiis qolkaga jireen aad baan ugu faraxsanahay in ay xaruntan noo dhisanto maanta waxaanu dhagax dhigaynaa xaruntii xeer ilaalinta gobolka Sanaag oo noqonaysa halkan inaka hooseysa lebanku yaallo insha Allah waxaan rajaynaynaa inay anfacdo ilaahay inoo suuro geliyo hore ay dhulka u qaateen maantana hay'addiisay baa noo timi waxaan rajaynaynaa inay muddo dhow la isticmaali doono oo aynu ka faa'iideysan doono maanta waxaanu helay inaynu dhisno ama aynu dhagax dhigno oo dhismihii bilaabmayo xeer ilaalinta gobolka Sanaag oo aan xafiis lahayn sidii hore intii horeba kuna jirtay amaano ama wasaarad kuna jirtay qolkaga jirtay soo shaqaalihiisuna ay bateen haddana aad ugu cadilaa inuu halka haddana ku shaqeynayay insha Allah waxaan jeclahay meesha loo dhagax dhigay waa meel muhiim ah waa meel loogu talagalay loo qoondeeyay in xeer ilaalintu ay degto Cabdi Saaq Sugulle codka bariga Afrika Ceerigaabo